aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baas ayaa nimana iga gatay looyo iyada oo maanta magaalada Muqdisho ay isugu soo baxeen kumanaan ka tirsan waalidiinta Soomaaliyeed oo ka cabanaya in ilmahoodii meel lagu sheego kuwaas oo magaalada Muqdisho iskoosyadooda lagu arkay iyaga oo wata boodhar ay ku xardhan yihiin madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba dhalinyaradii Soomaaliyeed ee loo qaday dalka Eritrea ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan iskooyska Sayidka Tarabuunka Dabka iskooyska Banaadir Tarabuunka iyo meelo badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho waalidiintan ayaa waxay gabi ahaanba ka cabanayeen ilmahoodii meel lagu sheego iyaga oo sheegay inaysan joojin doonin banaanbaxayaasha ilaa iyo inta ilmahoodii meel lagu sheegayo waalidiintan ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha iyo waliba hay'adaha kale ee dawladda in ay gabi ahaanba ilmahoodii meel ku sheegaan sida ay maanta soo qoreen ama lagu arkayay warbaahinta iyagoo la hadlaya waalidiinta ayaa ilmahooda indhahooda waxaa laga dheehan karayay iyaga oo sheegay in muddo badan ay banaanbax dhigayeen wax u jawaabaan ay waayeen haddana ay banaanbaxda u badali doonaan kacdoon waa sida ay sheegeen waalidiinta dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa banaanbixii maanta ayaa wasiirka warfaafinta Ismaan Abuukar Dube ayaa maanta waxa uu jijiraad ku qabtay magaalada Muqdisho iyaga oo wariyaashu ay weydiiyeen su'aalo isaga oo wasiirku ka jawaabayay in ilmihii waalidiintii maanta in ay kaga jawaabaan banaanbixii halkaas maanta ka dhacay wuxuu sheegay su'aalo dadku ay la yaabeen kuwaas oo ay ku sifeeyeen inay yihiin su'aalahaas kuwa jees waa sida maanta wasiirka warfaafinta uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay Ismaan Abuukar Dube in aysan ilmahaas dagaal galin Ethiopian aysan dagaal ku qaadin waa sida uu sheegay iyaga oo tababarna u imaan doona waxa uu sheegay in ay qaramada midoobay ka soo xigatay buu sheegay mucaaradka Soomaaliya in Facebookyadooda waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho dad badan ayaa Facebooka iyo baraha bulshada maanta ku hadalaya jirka jaraa'ida wasiirka isaga oo la sheegayo inuu ahaa warkaas war jees qaramada midoobay ayaa horay ugu tilmaantay iyo waliba hay'adaha kale ee UN-ka ayaa sheegay in ay xasuuqi ka dhacay dalka Ethiopia ee lagu galiyay dhalinyaro Soomaaliyeed iyada oo dadka Soomaaliyeed iyo waalidiintuna ay ka muujiyeen cabasho xoogan kuwaas oo sheegaya in ilmahoodii ay dalka Eritrea ciidamada Eritrea ka dagaalamayeen iyo waliba kuwa Ethiopia oo mucaaradka dalkaasi Ethiopia dagaal xoogan kula jira dadka ayaa waxa ay si arhaynta maanta baraha bulshada haysatay ay ahaayeen in wasiirka warfaafintu uu warkiisu u badnaa arrin jees ama istifaaca oo uu kaga jawaabayay dagaal waa banaanbixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho